kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta 429aad ee barnaamijka tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmada kala guurka Soomaaliya ee UNTMIS. mahadsanid Faisa, ma og tahay in maanta ay tahay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo? aad iyo aad cabdi casiis, maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayaa la xusaa 21 Febraayo sanad kasta si kor loogu qaado kala duwanaanshaha luuqadaha iyo dhaqanka, isla markaasna loo xoojiyo wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhammaan luuqadaha iyo lahjadaha kala duwan. waa sax Faisa, maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo ay markii ugu horreysay ku dhawaaqday UNESCO kadibna uu meel mariyey golaha guud ee qaramada midoobay, waxay hoosta ka xariiqaysaa doorka afku ku leeyahay horumarinta wadajirka iyo ka midho dhalinta ujeeddooyinka horumarka waara, kuwaas oo ay isku raaceen dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay sannadkii 2015, isla markaana qeexaya qorshe iyo baaq caalami ah oo ku aadan wax ka qabashada faqriga, ilaalinta deegaanka iyo hagaajinta nolosha iyo rajada qof kasta meeshuu doono ha jooge. waa sidaas, maantana waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta hiddaha luuqadeed ee hodanka ah ee Soomaaliya. aad iyo aad waxaynu leenahay luuqado iyo lahjado qani ah oo kala duwan, ha yeeshee qaar badan oo ka mid a afafkan waxay ku jiraan halis iyagoo wajahaya dabargo. waa muhiim in wax laga qabto caqabadaha wajahaya ilaalinta hiddaha luuqadeed maadaama ay lama huraan u yihiin jiritaanka haybteenna iyo hiddaheenna. haddaba si aan wax badan uga ogaana arrintan, waxaa sharaf inoo ah in maanta aan soo dhoweyno 2 ruux oo mawduucan wax badan kala socda. waa Brofesor Cabdalle Cumar Mansuur oo ah khabiir dhanka luuqadaha ah, ahna gudoomiye sharafeedka Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga AGA, iyo Brofesor Maxamed Cumar Dalxa oo ah aqoon-yahan Afrikaan ah. soo dhowaada labadiinaba. Brofesor Cabdalle Cumar Mansuur, haddii aan adiga kugu bilaabo, sidee ixtiraamka kala duwanaanshaha afafka ka jira Soomaaliya gacan uga geysan kartaa ilaalinta xuquuqda insaanka, isdhexgalka bulshada, nabad dhiska iyo wadajirka bulshada? waa run, waa in maaragtay la dhowraa kala duwanaanshaha afafka ka jira Soomaaliya. marka Soomaaliyana sida maaragtay aan ka warqabno hal afaa looga hadlaa oo af Soomaaliga ah. waxaa ka baxsan oo af Soomaali aan ahayn oo la hubo waxay tahay afka Jimini la yidhaahdo ama afka Bravo looga hadlo, waa magaalada Bravo looga hadlo, iyo Mushunguli afka la yidhaahdo oo isagana loogu hadlo dowla ku taalo Jilib meelahaas, iyo af kaloo isagana Bajuni la yidhaahdo jasiiradaha Kismaayo iyo deegaano kooban. marka waa deegaano kooban waaye, waa afkoodana waa af Bantu waaye. adduunka waxaa ka jira maxaan ku yidhaahdaa afaf, qolo walba afkeeda waxay leedahay lahjaday leedahay, qolo aan lahayn adduunka ma jirto. carabi ka soo qaad, lahjado kala duwan ay leeyihiin oo malaha qaarkooda xataa aan isfahmaynin, laakiin waxay isku fahmaan af standard. hal lahjad ayaa standard noqonaysa, ay isku fahmayaan. marka Soomaaliga lahjadihiisa 8 lahjadood kalay leeyihiin. lahjadahaas marka maxaan ku yidhaahdaa waxaa markii la qoray waxaa soo shaac baxday. markii farta la qoraayo horta waxaa la yidhi far Soomaali ha la qoraa la yidhi, af Soomaali oo maxaa tiri ama maay ama xataa lama dhihin. anigu aan noolaa markaas waa jiray, macalinaan ahaa. lahjada in la respectray oo aanan la inkirin oo aan la dhihin bahasha maaragtay waxaas waaye lahjadaas waaye la xaqirin. brofesore, qaabab noocee ah ayaa Akadeemiya Goboleedka Af Soomaaliga AGA kor ugu qaadaa ilaalinta luuqadaha Soomaaliya? maxayse yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajahaysaan? ilaalinta af Soomaaliga annaga aan hayno waxaa waaye horta inaan aruurino wixii afka ku saabsan, gaar ahaan xoogga waxaan saarnaa horta lahjada oo standardka noqotay in hab maaragtay midaysan loo qoro. marka waxaa waaye standardka afka ka sokow, standardka xataa farta la rabaa inaan kala duwanaanin. waa aragtay Ingiriisiga ma Faransiiska, yacni
laba waa variant oo ingiriiska sibuu maaragtay taariikhda u sheegay, UK-na taariikh si kale u sheegay. mushkilo ma aha, laba variantaa la yidhaahdaa, af walba waa leeyahay, laakiin 4 5 6 variant ma noqon karta. waa imaaha miduu ku leeyahay, koo waan imaanahayaa buu ku leeyahay, koo waa imaanayaa, koo waa imaanoohayaa. 7 kuu sheegi karaa oo maxaa tiri ah, 1 iyo 2 soo baxday, tiyaa loo batay oo naxwo ahaan. marka taas horta wax walba oodasay u kala sarreysaa loo kala qaadaa. midda adeegsiga oo dadka aan leenahay hala adeegsado laysku fahmi kara, iyada nafteeda in standardized laga dhiga, taasaan xooga aan saaraynaa. kow iskoolaadkii iyo sidii waxaa looga dhigi lahaa. tan labaad waxay tahay lahjadihii iyagana in laga soo qaato wixii oo kaamil maaha lahjadan oo hadda standardka noqotay, wixii kabi kara inaan soo qaado. taasna waxaan samayn karnaa annaga kulli lahjadaha dhamma wada naqaane, dad ku hadla lahjadahaas oo wax yar khabiir oo mutacalim ah oo voluntary ah oy leeyihiin annaga waxayna maxaa loo qori waayo, maxaa loo yeeli waayo, waa soo dhawaynaynaa, waa qancinaynaa, wixii uu maqano waa kamilaynaa. sidee uga gudubtaan caqabadahan, maxayse tahay taageerada aad u baahan tihiin? waxaan taageero uga baahannahay horta midoo laba taageeraan u baahannahay. adaga ma nihin wax oo maaragtay miracle mucjizo ma samayn karno sida adduunka kale, oo ma lihin dhaqaalo fiican, iyo dad badanoo cilmigan yaqaanana waa ku yaryihiin. afkan cilmi afeed la yidhaahdo ama linguistics waxaa waaye ilaa PhD la sameeya 20 maadadood ayaa cilmi ah. marka dadka waxaan kama warqabaan afku wixii u malaynayo waa kaan ku hadlayno, cilmi ma aha. caqabada na hortaagana marka waxaa waaye dad badan ma haysano oo aqoonta u leh. tan kalena waxay tahay lahjadaha ayagana caqabadaa naga haysta. ugu dambayn, door intee la-eg ayay ka qaadan kartaa bulshadu ilaalinta afka hooyo? waa kaalin weynay ka qaadan karaan dadweynaha. horta waxaa ka maqan wacyigelinaaba ka maqan, qiimaha afka ayaa ka maqan. qaarkood ingiriisiga ayaa qiimo u leh, waan afkan aan iska daynay bay leeyihiin. waxaad ka garanaysaa maanta dadka in maaragtay si afkii qiimihiisa ka maqan yahay. waxaa lagu hadlaya af jacbur oo ingiriisi iyo soomaali oo jacbur ah ayaa lagu hadlaa. marka dadkiia dhumin raba afkoodii, qiimahoodaba maba oga. iska qabsiga sidii siyaasadii oo kale, intaan iska qabsan lahayn bal afkan see loo daryeeli lahaa, midka standardka ah. kuwa lahjadana ayagana sidooda oo kale inay dhaqaaqaan. bulsho kastaba Soomaaliyeed waxbay baratay. ninkii wax bartayow lahjadaadii isku day inaad soo aruriso. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa brofesor cabdalle cumar mansuur oo ah khabiir dhanka luuqadaha ah ahna guddoomiye sharafeedka akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga aga. welina dhegeystayaal waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka tubta nabadda, balse iminka aan u gudubno wareysi aan la yeelanay brofesor maxamed cumar dalxa oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ahna afyaqaan. wuxuu ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan caqabadaha ugu waaweyn ee la xiriira ilaalinta afka iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo sida wax looga qaban karo caqabadahaas. soomaaliya burburkii wixii ka dambeeyey, dadkii soomaaliyeed adduunyada bacalladeeda ayay kala aadeen. kii yurub aada, kii africa meel ka aada, badigooda kii america iyo australia taga. halkaasi caruur ku dhalatay, ku garaadsatay, iyo dad iyagoo aan qaangaar ahayn, intaba waxay qaateen saameyna ku yeelatay bii-ad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo af ahaan dalalkii ay tageen. dhalinyaradaasi afka ayaga nin walba uu dalkii u tagay ee looga hadlayay ee saameynta ku yeeshay, waxay taabanaysaa dhaqankii, hiddihii iyo afkii soomaaliyeed intaba. marka afna waxaa lagu badbaadin karaa waa graamarka ama naxwaha.
haddii afkii soomaaligana aanan xooga la saarin ilaalinta naxwaha, qaabka dhigaalka, xataa waxyaabo fara badan oo khaladaad ah oo hadda aad arkaysid. waxaa kasii haddana muhiimsan in af soomaaliga si cilmiyeysan loo barto oo naxwihii, maxaa yeelay mi lewis ayaa nin gabya ah soomaaliyeed marka si hab cilmi ah af soomaaliga u kala saar la yiraahdo ayaa laga yaabaa inuu kaga fiicnaado. brofesore, iyadoo la tixgelinayo doorka afku ku leeyahay waxbarashada, sidee ayay soomaaliya ugu dari kartaa afafka iyo lahjadaha kala duwan nidaamka waxbarashada si kor loogu qaado waxbarashada iyo dhaqanka? soomaalidu afkeeda marka aad eegtid, annaga bah ahaan inkastoo aan maanta la isku yiraahdo afafka kushiitikada aan ka tirsannahay, haddana xiriirka dhow ee af soomaaliga ee aadka isu saameeyeen waa midka carabiga ee saamiitikada ah. badi waxaa la yidhi af soomaaliga wixii laga waayo afka carabiga ha laga doono. af soomaaliga laftirkiisa ayaa maanta wuxuu leeyahay lahjado kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn, haba uu sii weynaadaano hadda labada ee hadalhaynta ee dastuurka lagu qorayna waa may iyo maxaatiri. maxaatirigii ayaa inta fada badan asaga waxaa la siiyey awood ama xoog ama dhinac kasta, haddii ay miidiyihii tahay, haddii ay manaahiijtii waxbarashada ee iskuullada ee silibisyadii, wixii af soomaaliga markii kulli xataa ee maadooyinkii lagu baran jiray af soomaali loo rogay manhajkii, haddana waxaad arkaysaa in aanan wixii laga waayay xataa af maxaatirigii inaanan laysku dayin in af maydii laga raadiyo. marka waxaa haboon in manhajkii dib loogu laabto oo laga wada dhigo wax ee soomaaliya oo dhan ee u dhexeeya oo dhammaan wada taabanayo soomaali, meel weliba, gobol weliba iyo deegaan weliba, si loo helo soomaaliya oo dhammaystiran ee la dhihi karo allay lehe waxani waa wax soomaaliya oo dhan ka turjumayo, laakiin aanan noqonin waxa hadda aan arkayno taariikh hal dhinac u raran, af soomaali hal dhinac u raran, dhaqan iyo hiddo hal dhinac u raran. waxaasoo dhan kulli waxawaaye waa wax cadaalad darada soomaalida kursiga iyo mansabka unbay ka fiirisaay. taa laftirkeeda waa midda ugu xun, maxaa yeelay ummad dhan baa jiritaankeeda halkaasi la inkirayaa, taariikhdooda iyo caadooyinkooda iyo dhaqankooda, soomaalinimadooda xataa mugdi la gelinaya. ugu dambeyn, maalinta caalamiga ah ee afka hooye waxaa loo dabaaldegaa kala duwanaanta luuqadeed iyo midda dhaqan. maxay taa marka fariinta aad gaarsiinaysa dadka soomaaliyeed, sideese u dhiirigelin kartaa jiilasha soo socda? waxaa la heli karaa marka la yiraahdo soomaaliya wax ka turjumaya inta aad soo sheegtay, hadday dhaqan tahay iyo hadday af tahay iyo haddii xataa hiddo iyo lahjo iyo waxa adiga aad markaasi magaca soomaaliyeed dhammaan wada khuseeya, in loo helo wax oo la dhihi karo common, ama yacni wax ayaga iskugu maartay keeni kara ee dhammaan inay ayaga ay soomaali ku wada idishahay dhaqan ahaan iyo hiddo ahaan iyo taariikh ahaan iyo af ahaan, dhinac kastaba maartay ee aanan noqonin waxa hadda qaabkan awood qaybsiga ku dhisan 4.5ka ee ciddii markaasi ayada af dheer ma gartaya, ama awood isbidayso keliya in ayada ay hesho qadarin iyo tixgelin. ninkii beeraha ee joogayna wuxuu yiri sayidkii dhoobay nin degay nin dhintay wax isma dhaamaane ya ergaasoo nin ilmaayo cuntay baan dhimana noolayna ma gartaya. waa dhulkii barwaaqada meeshii wax soo saarka dhan kulli ayaa ninka dadka ku nool dhan wuxuu ka dhigay dad aan nolol iyo geeri meel lagu tirinaya aanan lahayn. waxaase suugaanteenina waa in laga saara. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda. iminkana dhegeystayaal ku soo dhowaada hees ku baxaysa afka jimiiniga ama afbarawaaniga oo ay ku luuqeynayso fanaanada soomaaliyeed ee caasha cabdow malayka. mikonana nawe ni lazimu kana chamura moja hakimu pendo zetu zitakuwa ya daimu. mikonana nawe ni lazimu kana chamura moja hakimu pendo zetu zitakuwa ya daimu.
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ay ku luqeynaysay fanaanada caashe cabdow maleeka ee ku bixaysay afka barwaaniga waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan inoo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan